Waxaa xalay magaalada Barawe lagu soo gabagabeeyay munaasabad lagu maamuusayay dhalashada nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam. Masjidka Shariif Qulateen oo kamid ah masaajidyada ku yaala magaalada ayaa lagu qabtay gabagabada maamuuska dhalashada nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam oo bilowga bishan Rabiicul Awwal ay ka socotay. waxaana ka soo qayb galay culimaadudiin, mashaayikh, isuduwaha wasaaradda awqaafta ee degmada Barawe, Cabdulqaadir Maxamuud Abays, dhalinyaro iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Inta ay socotay munaasabadda maamuuska dhalashada nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam ayaa lagu soo bandhigay nabi amaan iyo qasiidooyin lagu amaanayay nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam. Sheekh Aadan oo kamid ah culimaadudiinka degmada Barawe ayaa ka sheekeeyay taariikhda nabigeena Maxamed alayhi salaatu wasalaam iyo qeybaha kala duwan ee bulshada oo faray alle ka cabsi. Allah subhanahu wa ta'ala وأمهل بالملائكة أهلينيكو وأمهل بالله سبحانه وتعالى نهرسي سسوكري وأمهل بالذنوب تلسكدافاي الله سبحانه وتعالى بيكي أقبل على مهل كان وقرا وأن الله سبحانه وتعالى خير أقبل على الله سبحانه وتعالى أنه وعطيكي خير وقتنا وقتنا جواز. أمريكا سبحانه وتعالى إلا تفردو وقت هو ونمشي أرجع وأرجع سبحانه معيان. إذا أرجع سبحانه إنسان على الله تكاه يا الله مكتوب يعني. سوى وقتنا سبحانه أي ميل
xuskan oo lagu maamuusayo dhalashada nabigeena Maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa sanad kasta marka la gaaro bisha Rabiicul Awwal ama Mawlid lagu qabtaa guud ahaan caalamka oo lagu maamuusayo dhalashada xabiibkeena Maxamed sallallahu calayhi wasallam. Maxamed Khadar, Kunya Barow TV, magaalada Baraawe.